بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتها بوندا ودال موربو جوجتان كسو دوادا qodobada ugu weyn wararka maanta aan idin hayno hadii aad nagu cusub tahay ugu horeyn channelkan subscribe saar sidoo kale asxaabtaada la sii wadaag warbixintan sidoo kale qaybta hoose ee commentiga noogu reeb aragtidaada Ameerika Qatar oo amray in deeq qalab caafimaad ah loo diro Soomaaliya madaxweynaha Eritrea iyo wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo kulan xasaasi ah ku yeeshay Addis Ababa taliska ciidamada booliska magaalada Baydhabo amaro culus soo saaray maamulada Puntland iyo Galmudug oo shir degdeg ah ka yeelanaya dagaaladii duleedka magaalada Gaalkacyo ka dhacay barakacay ugu xoogana oo ka bilowday xaafado kamid ah magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan dowladda Turkiga oo markii labaad qalab caafimaad oo aad muhiim u soo gaarsiisay Soomaaliya kulamo lagu xalinayo dagaal ismaamulka Soomaaliya Itoobiya ku dhex maray laba qabaa'il Puntland oo shaacisay kiisas hor leh oo coronavirus ah hagaag aynu ku bilowna Ameerika Qatar ayaa amray in Soomaaliya loo diro gargaar degdeg ah Ameerika Qatar Tamim bin Hamad Al Thani ayaa maalnimadii shalay ku dhawaaqay in dalka Soomaaliya loo diro gargaar caafimaad oo wax ka tara dadaalada loogu jiro ka hortagga cudurka coronavirus Ameerika Qatar oo soo saaray hadal kooban ayaa amar ku bixiyay in si degdeg ah loo abaabulo gurmad caafimaad oo loo diro Soomaaliya isagoo intaasi ku daray in dowladda Qatar ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato gurmadka loo sameeyo Soomaaliya tan iyo markii uu bilowday caabuqa coronavirus ayaa Soomaaliya waxaa gurmad kala duwan soo gaarsiiyay dalal dhowr ah hay'ado caalami ah hase yeeshee dowladda Qatar oo saaxiib dhow la ah dowladdan hadda jirta ayaana weli gargaar soo gaarsiin Soomaaliya madaxweynaha Eritrea iyo wasaaraha Itoobiya ayaa kulan xasaasi ah ku yeeshay magaalada Addis Ababa madaxweynaha Eritrea ayaa ka degay dalka dariska la ah ee Itoobiya iyadoo oo la sheegay inuu bilowdo olole ka dhana COVID-19 iyo arrimo ku saabsan sida uu ayaxa u baabi'iyay dalagyada deegaanka Aziz Afwerki ayaa ka degay Addis Ababa iyadoo uu muddo dheer uusan ka soo muuqan meel fagaara ah taasi ayaa abuurtay hadalhayn in xaaladiisa caafimaad aysan wanaagsaneyn ma cadda sababta uu madaxweynuhu u safray xilli shirarka gobolka dhawaanahan lagu qabanayay hab muuqaal ah Masters ayaa xilka dalka Eritrea hayay tan iyo horaantii 1990kii kolkaasi oo Eritrea iyo Itoobiya ay ahaayeen dal qura taliska ciidanka booliska magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay soo saareen amaro culus oo ku socda ganacsatada kala duwan ee magaalada Baydhabo taliyaha ciidanka booliska degmada Baydhabo gaashaana dhexe Muqtaar Ibraahim oo la hadlay ganacsatada iyo waalidiinta magaalada Baydhabo ayaa ku amray inay ka fogaadaan waxyaabaha carruurta ay ku ciyaaraan maalmaha ciidda ee amniga qalqal gelin karayo waxa uu sheegay taliyaha in xaalado dhanka amniga ah darteed loo joojiyay inay ganacsada keenaan qalabka ay carruurta ku ciyaaraan sida bastooladaha baaruuda loo isticmaalo iyo qoriga xilli dhawaanahanba ay suuqyada magaalooyinka Soomaaliya ku soo badanayeen sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in tallaabo laga qaadi doono ganacsatadii iyo waalidiintii ka dhaga adeega amarka taliska ciidamada booliska ee magaalada Baydhabo sanad kasta markii ay soo dhawaadaan maalmaha ciidda ayaa maamulka iyo booliska magaalada Baydhabo waxa ay soo saaraan amaro ka mamnuucaya dadka shacabka ah inay isticmaalaan baaruud ama wax u eg wasaaradda caafimaadka ee dowladda Itoobiya ayaa shaacisay natiijada dad la baaray ama laga baaray cudurka coronavirus kuwaasi oo qaarkood laga helay inay qabaan wasaaradda waxa ay sheegtay in dadkii looga shakisnaa cudurka ee la baaray 8 kamid ah laga helay kuwaasi oo la geeyay xarun lagu karantiinayo oo ku taala magaalada Jigjiga dadka cudurka laga helay oo dhamaantood ku sugan magaalada Jigjiga ee xarunta dowladda Soomaaliya Itoobiya ayaa waxa la sheegay inay dhawaan ka soo laabteen magaalada Boosaaso ee deegaanada maamulka Puntland waa markii labaad oo dad ka tagay magaalada Boosaaso isla markaana dib ugu laabtay Jigjiga laga helay cudurkan coronavirus waxaana taasi ay walaac weyn ku abuuri kartaa dadka ku nool magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kuwaasi oo ka baqanaya in cudurkan uu si aad ugu faafo Puntland iyo Galmudug oo shir degdeg ah ka yeelanayo dagaal shalay duleedka magaalada Gaalkacyo ku dhex maray laba qabaa'il maanta oo Isniin ah ayaa waxaa la filayaa in shir degdeg ah ka yeeshaan laamaha amniga ee Puntland iyo Galmudug xiisada ka dhalatay dagaal habeen hore deegaanka Teerag ee duleedka galbeed ee magaalada Gaalkacyo ka dhacay
goobta dagaalku uu ka dhacay ayaa waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan daraawiishta Puntland waxaana gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Axmed Muuse Nuur uu sheegay in ay saldhig ay soo weerareen maleeshiyad hubeysan oo is urursaday dadaalo lagu qaboojinayo xiisad ka dhalatay dagaalkaasi ayay wadaan labada dhinac ee Galmudug iyo Puntland waxaana kulankooda maanta uga hadli doonaan sidii xal looga gaari lahaa dagaalka ka dhacay deegaankaasi mas'uuliyiin heer gobol iyo laamaha amniga labada maamul ayaa ka qayb galaya shir lagu qabanayo waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee maamusha Puntland warar kale oo laga helayo deegaanka Teegare ee galbeedka Gaalkacyo ayaa waxay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan isla markaana saldhig ay ku sugan yihiin ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan daraawiishta Puntland kuwaasi oo loogu talagalay in ay kala dhex galaan labada maleeshiya halkaasi ku dagaalamayay ee khasaaraha isgaarsiiyay magaalada Beledweyne ee gobolka haddii aynu eegna waxaa la soo warinayay in barakac baahsan oo iminka ka soconayo wararka laga helayo magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in qaar kamid ah shacabka magaaladaas ay bilaabeen inay ka barakacaan magaalada cabsi laga qabo fatahaad uu sameeyo webiga xaafadaha laga barakacay ayaa waxaa kamid ah laanta dhagax jabis ee magaalada Beledweyne kadib markii uu xalay ku fatahay webiga Shabeelle oo maray magaaladaasi dadku sugan magaalada Beledweyne ayaa warbaahinta waxay u sheegeen in meelaha qaar webigu uu aad u biyo keenay isla markaana ay jirto cabsi weyn oo la xiriirta in uu fataho ama uu gaaro xaafadaha magaalada shalay dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Beledweyne u dirtay wafdi injineer ah kuwaasi oo qiimeyn ku sameyn doona xaaladda fatahaadaha uu sameyn karo webiga Shabeelle iyo sidoo kale qaabka looga hortagi karayo ee ugu fudud waxaana injineerada halkaasi gaaray wali ayna ka howlgelin magaalada iyadoo oo xitaa la soo warinayay inaysan tegin halka laga cabsi qabo in webigaasi uu fatahaada ka sameeyo diyaaradii saddexaad oo deeq agab caafimaad sida ee ka socota dowladda Turkiga ayaa saakay oo isniina ka soo degtay garoonka diyaaradaha caalamiga Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho qalabkan ayaa kuwa lagula tacaalo xakameynta iyo ka hortagga cudurka safmarka ee coronavirus kuwaasi oo kiisas badan kamid ah laga helay Soomaaliya mas'uuliyiin ka kala socday wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa tagay garoonka Muqdisho iyaga oo deeqdaasi daawada kala wareegay safiirka Soomaaliya ee Turkiga dowladda Turkiga ayaa waxa ay kamid ah tahay dowladda sida xawliga ah dowladda Soomaaliya ugu taageero xakameynta cudurkan coronavirus oo saameyn ku yeeshay dalka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa warbixintii ugu dambeysay ku sheegtay in la diiwaan galiyay 48 saac ee la soo dhaafay ilaa iyo 51 xaalado cusub COVID-19 ah 10 ruux ay bogsadeen halka qofna uu geeriyooday tirada xaaladaha COVID-19 guud ahaan dalka laga diiwaan galiyay ayaa gaartay 722 waxaa bogsatay 44 ruux halka 32 ruuxna ay u geeriyoodeen cudurkan coronavirus ee dunida saameynta baan ku hayo sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya kulamo lagu xalinayo Soomaali ku dagaalantay deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya ayaa iminka bilowday magaalada Salaxaad oo ka tirsan dhulka dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxaa kulan ku yeeshay odayaasha dhaqanka iyo wafdi ka socda xukuumadda dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya kaasi oo looga hadlayay xaalka gaarista dagaal beeleed halkaasi ka dhacay dagaalka ayaa waxa uu dhaxeeyay laba maleeshiya beeleed oo Soomaali ah kuwaasi oo la sheegay in dad ka badan 70 ruux ay dagaalkaasi ku dileen boqolaal qofna ay ku barakaceen hogaanka ku xigeenka nabadgelyada ismaamulka Soomaaliya Itoobiya Cabdiqaadir Cabdi Jaamac oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka isla garteen sidii loo joojin lahaa colaadda labada dhinac u dhaxaysa isla markaana xal rasmi ah looga gaari lahaa dhinaca kale ciidamada sida gaarka ah ee deegaanka ayaa xukuumadda u dirtay goobaha shaqooyinka ay ka jiraan si labada dhinac ay u kala dhex galaan maadaama dirirtan ay dhowr jeer soo laalaabatay intaasi ayaan ku soo afmeerayay akhbaraadkii ugu waaweynaa Soomaaliya iyo sidoo kale caalamka haddii aad nagu cusubtahay channelkan subscribe saaro waad ku mahadsantahay la jaanqaadkaaga مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان